kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Soyal TV oo aad ka dhageysanaysaan xaruntiisa dhexe ee magaalada Caabudwaaq warka waxa halkan si toos idin kala socodsiin doona anigoo ah Deeqa Jaamac Maxamed Deeqa Degan qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle oo kulan la qaatay midowga musharaxiinta taliska xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hoosgeeyay ciidamada AMISOM dawladda Mareykanka oo safiir cusub soo magacawday Soomaaliya akhbaraadka caalamkana waxaad ku daawan doontaan Mareykanka oo cunaqabateyn cusub ku soo rogay Ruushka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad goor u maqli doontaan haatan u diyaar garooba iyo ka faahfaahsan soo laabasho wanaagsan daawadayaal haynu ku horeynaa madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa la qaatay kulan midowga musharaxiinta warkaasina waxaynu aqrinayaa wariyaheena Mahad Bashiir Xilif madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa kulan la qaatay musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya kulankan ayaa ka dhacay guriga madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo madaxdani u sameeyay afur sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan muddo kordhintii dhawaan ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka wararka qaar ayaa sheegaya in midowga musharaxiinta iyo labada madaxweyne ay ka qaateen go'aan rasmi ah in muddo kordhintaasi aysan aqbalin ayna si wadajir ah uga soo horjeestaan waxa laga yaabaa inay soo saaraan war ku saabsan go'aankooda xilli hore maamulka Galmudug ay u cadeeyeen in aysan aqbali doonin wixii ku saabsan muddo kordhin loona baahan yahay in doorasho la aado haddii ay dhacdo in labada madaxweyne ay ka soo horjeestaan arrinta muddo kordhinta waxay u ekaan doontaa mid fashilmi doonta maamba muddo kordhintaani waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif Soyal TV Caabudwaaq taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la hoosgeeyay ciidamada AMISOM warkaasina waxaynu aqrinayaa wariyaheena Mahad Weel Warsame taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay kulan 2 maalmood socday oo lagu xaqiijinayay guulaha laga gaaray hawlgalka ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan guulaha ciidamada xoogga ay ka gaareen hawlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka qaar kulanka waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM wakiilada midowga Afrika u qaabilsan hawlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mandera iyo saraakiil ka socotay xafiiska taageerada qaramada midoobeed ee Soomaaliya xubno ka socda UK Mission iyo qaar kamid ah saaxiibada kale ee Soomaaliya ka caawiya dhanka amniga waxa gabagabadii lagu soo bandhigay qorshe midaysan oo ka dhana argagixisada kaas oo si wadajir ah u fulinayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage ayaa ku booriyay waxyaabaha ka soo baxay shirkaan inay noqdaan kuwa laga miro dhaliyo oo aysan noqon kuwa ku kooban qoraal si dhibaatooyinka Al-Shabaab looga qaado shacabka waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka laga sii tago sectoriskii ciidanka u joogay waxay ciidamada u diyaarsan yihiin mar walba inay hawlgallo joogta sameeyaan anigoo wax laala iyo wixii ciidamada SNA-da ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdaan ku dadaali doona waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqeynaya sectorisku inay arinta ayada xooga saaraan dukumiintiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa un hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala dhanka kale hoggaanka ciidamada AMISOM ayaa soo dhaweeyay waxa ayna sheegeen inay xoojinayaan hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo ay qayb ka tahay waxyaabaha loo igmaday We are closing the conference having deliberated and had a common understanding on the harmonized plan. I urge all the sectors to embark on its implementation along with the AMISOM mandate. You have to establish as soon as possible AMISOM SNA joint planning and coordination cells within your sectors and ensure they are fully operational. It's very important. I call up sector commanders to continue to degrade Al-Shabaab and other armed opposition groups, secure the many supply roads and key population centers by conducting joint operations
with Somali security forces. The months ahead will be crucial for the implementation of the decisions we have made together during this conference. As the nation gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities to the Somali security forces, joint planning and coordination, as well as the harmonized force reconfiguration, will enable the mission to maintain operational effectiveness. Thus, we could timely and effectively respond to threats within the area of responsibility. mahadweyl warsame telefishinka caalamiga ee Sooyaal magaalada Caabudwaaq. dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u soo magacawday safiir cusub. haddaba waxaynu ku ogaan doonaa warkeena safiirka cusub taariikh nololeedkiisa. warkaasina waxaynu akhrinayaa wariyaheena Mahad Ukane Yuusuf. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday inuu magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Larry Edward Andre maalintii Khamiista sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad. Mr. Andre waxa uu safiir ka soo noqday Mauritania iyo Djibouti markii ugu dambeysay waxa uu qabtay jagada George Avres Ard si ku meel gaar ah safaaradda Mareykanka ee Juba ee dalka Suudaan. Andre ayaa bedeli doona Donald Yamamoto oo danjiro ahaa Soomaaliya tan iyo bishii November 2018. Andre waxa uu kamid ahaa 9 diblomaasiyiin ah oo madaxweyne Biden u magacaabay danjiro Khamiistii. magacaabistaasna waxay calaamad u noqon doontaa xulitaanka ugu horeeyay ee ergooyinka dibadda tan iyo markii uu xafiiska la wareegay. Andre waxa uu kasbaday BA oo ka socda Claremont Magana College iyo MBA oo ka socda Arizona State University. Larry Andre Jar waa diblomaasi xirfad shaqo leh oo khibrad weyn ku leh Afrika. waxaa loo magacaabay 9 xafiis oo dibadda ah wuxuuna ka qabtay dhowr jagooyin sare dhammaan waaxda arrimaha dibadda. Andre waxa uu ku soo biiray adeega dibadda 1990kii isagoo qoraale hore ka qoray Nigeria iyo Cameroon kadib waxa uu sargaal sare ka noqday safaaradda Conakry ee Guinea 1998 ilaa 2000. waxa uu ka degay geeska Afrika isagoo ah sargaal deegaanka u qaabilsan bariga Afrika isagoo ka shaqeynaya safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa sanadihii 2000 ilaa 2002. wuxuu ku noqday galbeedka Afrika isagoo noqday madaxa ergada safaaradda ee Freetown Sierra Leone intii u dhaxaysay 2002-2004. kadib ku dhawaad 15 sano oo ka shaqeynayay Afrika, Andre waxa uu ku laabtay Washington laakiin waxa uu ka sii watay wasaaradda arrimaha dibadda. waxa uu soo noqday agaasimo ku-xigeenka xafiiska arrimaha galbeedka Afrika ee xafiiska arrimaha Afrika sanadihii 2004 ilaa 2006. waxa uu ku soo noqday bariga Afrika 2006 halkaas oo Andre la taliye siyaasadeed ka ahaa safaaradda US ee Nairobi ilaa 2008 halkaas oo uu wareegay safaaradda Dar es Salaam. Andre waxa uu ahaan jiray ergeyga iyo agaasimaha xafiiska ergeyga gaarka ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ee wasaaradda arrimaha dibadda markii uu galay kaalinta koowaad ee safiirnimo bishii September 2014 markii madaxweynaha xilligaasi ee Barack Obama uu magacaabay inuu noqdo safiirka Mauritania. waxa uu ka shaqeynayay muddo 3 sano laakiin waxa uu wareejiyay Djibouti madaxweynihii hore ee Donald Trump sanadkii 2017. waxa uu bedelay Tom Kelly oo ka shaqeynayay magaalada Djibouti intii u dhaxaysay June 2014 ilaa January 2017. Andre waxa uu si fiican ugu hadlaa luqadda Faransiiska. Mahad Ukane Yuusuf, Sooyaal TV, Caabudwaaq. iminkana akhbaaradka caalamka. Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogay dalka Ruushka isla markaasina diblomaasiyiin ka eriyay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar fulin ah oo lagu soo rogay cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah Ruushka sidoo kale in laga eriyay 10 diblomaasiyiin ah Mareykanka iyadoo laga jawaabayo olole ballaaran oo Ruushku ku jabsanayo xogta hay'adaha muhiimka ah ee federaalka iyo sidoo kale faragelinta doorashooyinka.
madaxweyne Biden waxa uu sheegay in uu uga digay madaxweynaha Ruushka cunaqabatayntan markii ay telefoonka kula hadlayeen bishii Abriil 13 Mareykanku ma doonayo in uu bilowdo meertada sii kordhaysa iyo khilaafka Ruushka waxaan doonaynaa xiriir degan oo la saadaalin karo ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka cunaqabatayntan oo ay isbuucyo siiyeen maamulka Mareykanka ayaa matalaysa ficilkii ugu horeeyay oo argoosi ee lagu dhawaaqay Kremlin ee jabsigii sanadkii hore kaasi oo caan ku ahaa jabintaas Windowska soo dhexgalka burcadda Ruushka ayaa la rumaysan yahay in ay ku faafiyeen software aad loo adeegsado koodhadh xun taasi oo u suurta gelinaysa in ay galaan shabakadaha ugu yaraan 9 hayadood taasi oo saraakiisha Mareykanku rumaysan yihiin inuu ahaa howlgal sir aruurin guud ahaan daawadayaal intaasi waxa inooga eeg war waxaynu idinkaga haynay dalka iyo daafaha caalamka warkana waxa halkan si toos idin kala socodsiinayay anigoo Deeqa Jaamac Maxamed Deeqa Degan dhanka kaamirada waa Farxaan Anshax farsamada iyo isku dubaridkana waa Maad Bashiir Xilif intaynu ku kulmayna warkan warka xiga sidaas iyo amaana Allah